السلام عليكم أصحابتي سو دوادا maanta waxaan idin wadaa cashar muhiim ah oo ka hadlaya stresska iyo waxyaabaha dadka stresska haya dawadooda ay tahay qofku marka uu stress ama walwal hayo waxaa lagula taliyaa in uu sameeyo exercise sababta ah exercise-ku wuxuu qofka ka mashquuliyaa walwalka sidoo kale qofka waxaa fiican xilliyada stressku hayo in uu cuno cuntooyinka sida hilibka cad waa kalluunka iyo digaaga sababtoo ah waxaa labadaba ku jira maadooyin hoos u dhiga ama yareeya stresska waxaa sidoo kale qofka lagula taliyaa in uu socodsiiyo caloosha sababta sidaas loo leeyahayna wax kale ma ahan stressku wuxuu saameyn ku yeeshaa ama ku reebtaa dheefshiidka maadaama qofku stress iyo walwal hayo waxaa la leeyahay caloosha ayaa fariisanaysa markaas oo kale waxaa la cunaa cuntooyinka caloosha socodsiiya oo fiberka ah sida digirta way badan yihiin cuntooyinka qolofka leh laga wadaa sida digirta waxyaabahaas oo dhan qamadiga waxyaabahaas oo dhan dadka waxaa jiraan qaarkood walwalkii iyo stress iyo cabsida markay hayaan caloosha socoto waa dadka qaar ma badna oo suuliga ku laalaabta dhowr jeer way jiraan dadkaas oo kale stress iyo walwal ama fakarka in qofku ku bato waxaa sabab u ah baa la yiraahdaa cidlada ama qofku in uu kaligii joog ama kaligii nool noqdo qofba qofku ka jecel yahay kalinimada wuu ka stress badan yahay sababtoo ah marka aad weysid wax kula sheekaysto adiga ayaa isla sheekaysanaya waana meesha stresska isla hadalka ka bilowdo wehel ka dhigo qof kasta oo aad isleedahay adduunkaaga iyo aakhiradaada ayuu wax kuu soo kordhin karaa la wadaag walaagahaaga kaleeto insha Allah asxaabtayda maanta waxaan ka hadlaayay stresska iyo dhibaatooyinku leeyahay waa inaa cuntaan marka stress iyo walwal dareemaysid hilibka cad kalluunka digaaga waa inaa cuntaa waa inaa iska daysaa hilibkan gaduudan ku rababa ha noqday geel ari lo intaas aan kula talinayaa biyo badan waa inaa cabtaa waa inaa kalinimadaas iska ilaalisaa oo isku daydaa dad kale inaa dhex gashid dadka ma ahan dad dhib ku gaarsiinaa inaa dhex gashid waa dadka isleeda alle dadkan waa ku farxi kartaa sheekadooda ama wada hadalkooda ama wax sheegooda subscribe saara channelka soo dhawaada share gareeya aad baa idin jecelahay